horreeyay ummadda Soomaaliyeed oo la furay 1998 marka saasay ku dhacay walaalle inaan kula kulmo sikadiisa aan ku arkay ama sida yani dayac inuu jiray inay xanuunsanayd gabadhu waxba ma qabto waxa jirana waxa keenay Soomaali ayaa ka dambaysa oo yani 30 sano la qaxayo 30 sano la cararayo 30 sano la silcayo hoog iyo halaag gablan iyo guri ba'ay waa wax yar oo kamid ah yani dhibaatada yani ay ku dhacday bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba haddii camera lala daba galo dumarka Soomaaliyeed dhallaanka Soomaaliyeed waayeelka Soomaaliyeed shacabweynaha Soomaaliyeed halaaga ay haystaan oo dal iyo dibadba ku haystaan naxdinta iyo murugada leh haddii aan camera lala daba galo cunto maana cuneen farxadna maana aragneen laakiin tani waa qayb yar oo kamid ah walaalkaya wax yar oo aan waxba ahayn oo ilaahay waa gartay waxaad taabatay arrinta ku saabsan hooyada caafimaadkeeda dabcan ugu dhakhtarma iyo hooyada garan maayo aqoon aan ku dhaho saasay tahay iyo saan ma ahana ma jirto waa igu gaf intaad ka aragtay markaad la sheekaysatay waxaa igu maqaalaa qof maskaxdeedu joogto oo tamaama inay ahayd adigu sidaa u akhriday markaad qofka la sheekaysatay walaalow xaqiiqatan haddaan runta sheego Soomaali yani wax fiyow way yari 99% haddaan dhaho Soomaalidu caafimaadka waxay u qabaan dhar la xirto waxay u qabaan caafimaadka gaari la wado waxay u qabtaan caafimaadka haweenay rinji ismarisa in la heeso in daahirka iyo korku u muuqdo dad caafimaad qaba in la yahay haweey cudurrada maskaxda waxyaalo badan baa keena qofka haddii ilaahay ku idmaayo walaalkayow arkay aabihii oo lagu hordilayo ama hooyadii oo lagu hordilayo ama walaalkii oo lagu hordilayo ama gabadhiisii oo la kufsanayo ama zawjkeedii oo la dilayo yacni qaracankaas ku nool 30 sano qarax dhacaya 2,000 oo qof dhimanayso lug duulaysa madax duulaya calool iyo mindhicir bannaanka yaalla ummad ayadoo dhan ba yacni nabad ilaahay subxaanahu wa tacaala uusa u diidin iyo islaamnimo iyo wanaag u siiyey ayagu isu diiday wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can katiir ninkii Soomaaliyeed uu arkay xal inuu dadkiisa laayo inuu dadkiisa qaxiyo inuu nabad diido inuu dawladnimo diido marka gabadh raallo waa u soo noqonaynaa waxa Soomaaliya ka jira umul weeye umulne cudurro umulow la yiraahdo ayaa ku dhaca gaalada Mareykanka waa taqaanaa gabadhan gabar shaqaysanaysa bay ahayd waa gabar caqli badan waa gabar fariid ah waa gabar codkan ah waa gabar maaragtay ardaallo ay ku cayaareen haddii ilaahay ku idmaayo waa gabar xanaano weyday waarid iyo walaal iyo ehel iyo sokeeye iyo wadaad masaajid jooga iyo jaaliyad iyo ummad Soomaaliyeed oo xanaanaysa oo naxariis iyo wanaag tusto oo gurigayga soo gal ila joog ila cun yani baakad bay dharka ku sidatay marka gabadha khayr Allah siiye ay bacda ay sidatay gabadha Soomaaliyeed ayaa siisay baakad iyo gabadhana gacanta ku haysatay baakadna waxay ku wadatay alaabteeda ku sidatay marka walaalow yani guriyaysa xataa ma lahayn miya Cabdiraxmaan Raallo guriyaysa xataa iyo deegaan ma laha miya walaal gabadhu gobol kale ka soo guurtay waana umul dadkii ugu dhawaa annagu hadda waa qurxinaynaa wax kasta ayaga laftigoodii dhib baa iska haysta marka qof Soomaalidu waxay tiraahdaa yani baahi badan iyo bugto badan waa lagu nacaa waxa ku dul qaadan kara qof yani damiir leh anigu qaxooti baan soo maray xarada jaxiim baa la dhahaa Soomaalidu waa naarta jaxiim ay ugu magac dareen hadda kaa kuuma iyo otaanga iyo anigu ma soo marin iyo xagar dheer iyo laakiin maskiinka Allah naha yani qaxooti baan soo maray marka waan dareemayaa qofka gobolada Mareykanka waa soo martay inaan homeless ku noqday inaan wax soo dhaweeyo iyo wax albaabka iga xirtaba aan arkay in shaqalaan bari ugu dhacday inaan koronto mar iska bixin waayay inaan kiradii iska bixin waayay in aan yani dantu ibaday yaa muslime yaa caawiyo marka walaalow maxaad moodaa haweeney dumara oo umul ah oo aan nin haysan oo aan ehel haysan oo zawjo haysan yani waa homeless marka caaway waxay inooga baahan tahay Soomaali weyn anu waxba ma qaban laakiin hadda loo inooga baahan yahay inaan wax qabanno
xamdi guri ay leedahay waa u samayn karnaa u samayno masaajidiyaan dhisnaa ana ugu liito oo 3-4 masjid ilaahay qudradiisa yani shan ku dhow waan dhisay gobolada kala duwan ee Mareykanka anoo kaliya urdimeedna aan ahayn koox aan qabiil aan wadin marka insha Allah ta'ala bi'aawni Allah wa quwwati ilaahay qudradiisa gabadhaas guri ayadu ay leedahay aanu dhisi karnaa waa qurxin karnaa frinjeer qurux badan iyo guri nadiif ah iyo dhar iyo labis iyo dahab iyo dad xanaaneeyo oo hareeraha ka fariista iyo quraan la saar iyo wax kastoo fiican gabadhaas walaalle taas ayaa muhiim ah gabadhii ilmihii waa soo dhiganay ilaahay waa nagu guulaystiyey xeelad iyo quwad iyo tabar annagu ma lihin laakiin ilaahay baa na awoodsiiyey ummadda Soomaaliyeedna gabar waxaan arkayay hooyo Soomaaliyeed baa ii soo dirtay cod ilmaynaysa adigay ku sheegaysa marka hooyadaas Kenya joogtaa waxaan jeclahay waraysi baad la yeelatay waa ma aqaan anu ma xasuusto laakiin way ilmaynaysa way ooyaysaa dhibkii wali way haystaa bay leedahay walaalow marka hooyadaas mar labaad inaad waraysato oo loo istaagana waan kaa codsanaya hooyo Soomaaliyeed oo buraanburey ku magacan baxday oo 7 caruura laga qaatay kii ay dhashay laga dafay marka haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed waxaan leenahay congress woman iyo yani wasiirra leenahay يعني waxaan leenahay yani Canada ku leenahay wasiir waxaan ku leenahay meel walba Soomaaligu meel walba jooga waa dad productive ah dad waxtar leh dad waxa weeye adduunyaha markay joodan ka muuqda dad nuclear bomb iyo physics bartay aan Mareykan ku arkay oo yani Soomaali ah oo satellite iyo dhakhaatiirta nursingka kaliya kun ku dhow magaalada gabdhaha oo gaalada iyo banta oo ay leeyihiin jaamacadaha laga joojiyo Soomaalida laga joojiyo يعني 1500 oo arday 2000 oo arday oo hal sano jaamacad galay oo kulligoodna dhakhtarnimo iyo injineernimo iyo business iyo international relations iyo yani field kasta galay oo laga yaabay marka dadkeenu waa dad waxtar leh ganacsigoodu waa middle class gaaraan dalkan Mareykanka waa heer sare marka gabadhan iyo gabdhaheena Soomaaliyeed waa u istaagi jirnaa laakiin cudur baan u dhacay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeedna rabaa inay ogaadaan oo daawan doona barnaamijkan haddii la yiraahdo gabadhaanu Soomaaliyeed iyo ilmaheeda yarka maxay u baahan yihiin oo ama dhaqaale ah ama musaadacad kale ah guri see loogu kirayn karaa see loo xanaaneyn karaa see maskaxdeeda loo dejin karaa ayadii ilmaheeda yarkaana aan loo kala fogeynin inay dad isku wataayo noqdaan ilaan waa hooyo haddaad hooyo ilmaha ka qaadid meel aan la daaweyn karin baa mar walba xanuunaysa aanna la taaban karaynin waxaa xusid mudan maanta oo axada 14 bisha March 2021 inay tahay maalinta hooyada adduunka hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeedna ay ubadkoodii la yihiin hadday ahaan lahayd qurbaha kuwa jooga hadday ahaan lahayd kuwa dhulkii jooga hooyo oo kuwa kale oo Soomaali sheeganaya ay ka laayeen oo cid kale oo cid walbaba isugu jira dhibaatadaas jirta gabadhaanu maxay u baahan tahay waa maxay tilaabada la rabo in la qaado ee ku habboon si arrinteeda wax looga qabto hadalka la joojiyo walaal waxay u baahan tahay daruuriyaat alcaysh ama daruuraat alcaysh ayay u baahan tahay oo min malbasin wa mashrabin wa ma'kalin xibanta cabitaan iyo cunitaan iyo sharaab iyo guri the primary needs waxa loo yaqaan food shelter clothing house bay u baahan iyo dad ayadii xanaaneeya oo ka warhaya laftigeedii maadaama umulow uu gabadhii yani cudurka umulaha oo isla buuqa uu hayo in ayadii gabadheediiba maaragtay xanaaneeyo waxay u baahan tahay dad ilaahay ka baqaya oo janno raba wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin samafalayaalka ilaahay waa jeceliya marka xalay markaan ka baxnay waraysiga $5,000 ayaa durba lagu soo shubay kaashabkeedii xawaaladaha qaarna waxbaa lagu soo dirdiray waxaan leenahay laakiin dhalinyarada hawsha wada kaligood kuma filna in lala shaqeeyo in degmo walba gobol walba dal walba adduunka gabadhatan aad isxil saartaan iyo gabdhaha kale Soomaaliyeed gabadhaana si degdeg loogu gurmado iyo gabadha walaasheen oo buraanburey oo Sweden joogta iyo gabdhaha kale oo Soomaaliyeed marka gabadhatan aan u midowna kulligeen oo sanduuq dhaqaale la sameeyo lacagaha la soo dirayo meesha cidda qabanaysa meeqay qabteen wax walba aan isku dibaridno walaalow meel u baahan hada lagama keeno ilaahay waa jecel yahay kuwa samafalayaalka ah marka qof walowba qaxooti baad soo martay qof walowba dal shisheeyaa timid qof walow kii wax la siiyo shalay wax maada haysan
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقبديني وولاشين وحاسكيني وإن أديتي nin Soomaaliyeed baa dayacay nin Soomaaliyeed baa caloosha u buuxiyay nin Soomaaliyeed baa ka cararay qabdhiina saasay maanta ay u badan yihiin ragga Soomaaliyeed oo naxariis muujiya ilaahay ka baqa heshiiya dalkiinni gabadhan gurigeedii bay ka soo qaxday ka soo carartay ay joogtay oo ilaahay yiri waqarna fi buyutikunna gurigeeda u daaya ninka siyaasiga ah ninka xilka rabow ninka kursiga rabow ninka madaxweyne inuu noqdo rabow ninka inuu xildhibaan noqdo rabow ogolow system iyo law iyo shariica islaam iyo wixii lagu heshiiyay dimuqraadiyad iyo 4.5 iyo mid toosan iyo mid dadan iyo waxay doontaa ilaahay shacabkan miskiinka uga baqa u hogaansama shacabka Soomaaliyeed waxa halkan xisad mudan inay shacabku aniga arkeen nin booliis hortaagan walaalayaal booliiska hadaan adoo la dagaalamaynin adigoon cayrsanaynin iyo maxkamadahaba haddiinaan iska oran waa layn ku tumanaya waxaan xasuustaa wiil brilliant student ahaa oo gaal iyo muslimba ka yaabeen oo dalka Pakistan wax ku soo bartay Mareykanka markuu yimid tacliintiisa laga yaabay oo 30 sano aan gaarin oo deegaanka Puntland ka yimid oo la oran jiray Cabdirasaaq Cartan hooyadiis waa ii ducaysaa waana ilmaysa markay aragto ayaa waxaa joogtay nin askari oo booliis 5 xabba maana 50 xabba wax la ku dhuftay amrun dubira bilayl wax laga soo shaqeeyay buu ahaa oo ninkii Trump ah oo aan rabo anigu inaan maxkamad soo taago uu ka dambeeyay si uu maaragtay nacaybka ummadda Soomaaliyeed uu ugu abuuro wiilku meel yar baa gaarigu soo istaagay oo darbi waxba ku dhacay waa wax xaqiiqo ah wiilkii waa baqay waa xararay wuxuu yiri hadii ay ku makaba waa hareerayeen been sheeka la sameeyay sakanno booliska markay halow la yiri marka xabadu ku dhaceen waa isla taagnay Trump magaalada tan buu yimid markuu darajada ku taxayay ninkii daalimka ahaa oo faajirka ah magaalada Cincinnati ka yimid oo criminalka ahaa waxaan taagnaa asaguna halkaas xaflad ka dhigayay anna qabrigii Cabdirasaaq Cartan baan taagnaa oo aan sawirkiisii iyo sawirkii askarigii toogtay baan soo agdhigay live baa loo daawanayay Soomaali weyn kana waxaan ku qoray criminal dambiile qaatil ah kana waxaan ku qoray shahiid ilaa haddana taasan aaminsanahay wiilkaas waa la khaarijiyay Trump baana khaarijiyay Soomaali u istaagay ya cid dhaqdhaqaaqdayna ma jirto dadkii waxaan maqlay ninkan xabad kuulay waxa way Soomaaliga maantay yamamaato iyo James Wan u sujuudaya u rukuucaya ninka madaxtooyada filla Soomaaliya ka doortay afisyooni ninka askariga Ugandayska iyo Burundiga ka doortay wiilasha xoogga dalka Soomaaliya ee qaranka Soomaaliya gorgor iyo haramcad iyo nissa iyo booliiska iyo geesiyaalka Soomaaliya ninka madaxweynaha Soomaaliya iyo gobolladii kale ee Soomaaliya ka doortay hadii ay ku idmaayo yamamooto iyo James Wan iyo Mandera iyo magaciisa ma aqaan iyo Ethiopian iyo Kenyaati anigu ma aqaan Soomaalinimada iyo wadaniyada uu sheeganayo dadkiisina nabadooda soo bixinay waxa weeye dadkeenu waa iskalaay aan soo yar celin Cabdiraxmaan arrintan Mareykanka aanu yara joogna hadii la yiraahdo waxaa joogta dalka Mareykanka Soomaalida ugu badan oo qurbaha joogta ayaa ku nool baa la yiri markaad eegtid waxaan maqalnaa mararka qaarkood Starbucks in qabyaalad iyo sheekooyinka lagu falanqeeyo masaajidda waaweyn baa leedihiin laakiin dadku ma wada xumo adiga sheegaya gabdhaha neerska iyo ardaydan wax baratay dad badan oo wanaagsan baa leenahay markaad jaariyadda eegtid ma jaariyad danta guud ka midaysan baa mise waa jaariyad burbursan oo xanuunadan qabyaaladda iyo dadka kala faquuqa oo ummadda kala fogeeyo ku dhacay waase wala la gacaliye xaqiiqatan anigu nin ragga Soomaaliyeed baan kamid ahay oo ceebaysan horta hore anigu raggaas ceeboobay oo Soomaaliyeed baan kamid ah ama khayrka Soomaali lagu amaano ku amaanan ama ceebta Soomaali leedahay leh man qala halaka an-nas fa huwa ahlakum bi nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii dadku way halaagsameen asaga waa halaagsan umaleyn maayo Soomaaliga ceeb badan anigu ma jiro inkastoo ana wax dilin waligay laakiin ninkii gabiye wuxuu yiri wallahi law alimu qabiha sarirati la basalama alayya man yalqani haday ogaan lahayn wallahi ceebtayda iyo dambiyadayda iyo dhacdhaca iyo khaladaadka iga dhaca qofba ima salaameen mid kalena wuxuu yiri ana alladhi ughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-ma'asi wa 'aynu allahi tanzuruni anu waxaan midka albaabada xiranayo oo hoosta ka xiranayo anigu ilaahay caasinaya iyadoo ilaahay ii jeedo waxaan ka wadaa
أنا عيبيسان لكن صومالي وحنا لا يهي ولا ليال lacag wad ka dharagteen Soomaalida qurbaa joogto gaaranta Mareykan Soomaalida Mareykanka joogta ma sha Allah waa middle class wiilashii Soomaaliyeedna barna jaamacadaha aadeen intii kalena waxay saaran yihiin baa la yiraahdo tareelayaal oo la yiraahdo tracking ayay saaran yihiin ka ugu yar baa sameeyay dhowr iyo 10 kun 9 kun 10 kun 20 kun dhowr kun oo wiil waa saaran tan qiyaasaya haday 5 kun 6 kun oo wiil ahaynba ama ilaa 10 kun oo wiil waa saaran tahay hadii ay fidmaayo businessyada kale ku jiraan home health care waxay ku jiraan daycare ku jiraan waxay ku jiraan real estate ku jiraan waxay ku jiraan ganacsi Mareykan uu galo oo aysan ku jirin Soomaalidu maanta ma ay jiraan ayaga shaqaale ay soo amarka Soomaalidu ama waa private sector bay ku jiraan ama ayaga isu shaqeey dhexdooda walaalow marka hadaan tan kaaga soo gudbo hal cudur baan la dilay waa cudurkii qabyaaladda Soomaaliya qabyaalad kama jirto qabyaaladu qurbay ka jirtaa balaayadu halkaan ay ka jirtaa Soomaaliya qurbaha laga dumiya maamul goboleedyada meesha laga dhisay oo looga taliyo waa qurbaha weeyaan marka walaalle caruur iyo dumar iyo dhalaan iyo dadkii tabartar yaraa iyo elderskii waa ay dayacmeen waana wax meel kasta ka jira maxaa ina la gudboon maxaa ina la quman waxayna la quman ilaahina ka baqdo ana soo aragtay Minneapolis jifa kasta meel bay ka soo jeedaa Columbus waa gartay xanuunkaas kolley ugu jira qurbahoo dhan waxaan rabaa inaan waqtiga ka faa'iidaysano oo soo koobno waa gartay adigu dhin culumaha tahay qolyihiinan wadaadada mararka qaarkood markay isku tashtaan oo isku yimaadaan laftigooda wax badan bay qabtaan oo khayr badan bay leeyihiin masaajidada inaad lacag uga aruursaan gabadhan iyo ilmaheeda yarka oo la xifdiyo haddii dadkii kale la gaari waayey nimanka dhalinyarada trucka wada kuwa tagaasida wada kuwa ganacsiga leh gabdhaha neerska la yiraahdo wartolbeer ayaa Soomaaliya hooyada iyo ilmaheeda la badbaasho masaajidada aad jamacada ka hadashaan ma idin muuqato ayada walaalow waa fududahay waxaan xasuustaa anigu inaan ku biiray 11 masjid magaalada Minneapolis oo masaajidkii anigu aan kamid ahaa ee uu ku biiray masaajidyadaas waxaan ku heshiinay 6 milyan iyo bar inaan isla bixino oo masaajidadaas lagu lahaa Cabdixaafid oo TV-ga qarankaana laga sheegay anigu habeenkaas waa iska kartay waxay war dhaabad ugu awrkacsanaysan bari marka 6 milyantii iyo bartiiba waa la bixiyay alxamdulillah aniga ma sha Allah يعني ما تضبط كم بيجي السوق قرتي الله لما بحين سك صباح كل عدله أدو إسكده لكن أبال بنوها يا بلا يلبحيي مركي دمنا ماشي وأنا عودو مركي دمنا ماشي كمبري قطعي أو ماشي سيبه إلى هيكو بدبادي الصوماليين مركا ولا اللي دي اللي حمليان يا بر شعب الصومالي مركي أركين وده دي سوت جايهم ده يستن أو مارتي عن قياس برو اللي حمليان يا بركاس يلي حمليان أو كله أو أنا هذا والعاملين عليها يوحل دوادي لا يكتب هيو الزكاة ضد الصوار وهي حوا وإني دي لا يكتب هيو أيوه halka وكاد عبد الرحمن dadka aan fahansanayn aayadda wal caamiliin calayha waxa weeye waxa jira lacag baa waxa laga aruuriyaa masaajidada ama TV-yada laga aruuriyaa marka dadka lacagta aruuriyay waa waxa laga siiyaa khidma waxaana la yiraahdaa waxay ka mid yihiin wal caamiliin calayha ujeedada u jeeda sidaas weeye نعم marka waa runta walaalayaal oo yani waxyaala xataa si xad dhaafa qaarkood u sameeyaan oo talanba wadaadku wuxuu leeyahay fundraiserka wadaad caan jira marka wuxuu sameeyaa fundraiser mu sameeyaa wuxuu leeyahay marka 30% aniga iskale yani 100 hadii la horreeyo 30 asaga iskale 20 kuwii la shaqeeyay 30 baa iskale adiga masaajidka waxa laga yaabaa 30% yiro saarto oo khalad ah wadaadka ama qofka qof wax u qabanaya ama agoon ama qof xanuunsan ama qof jiran وحي يعني فليأكل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قفك يعني أدان استمري قفك هذا أهنه يعني هذا والصدق كيف فقير أهنه وناقة فعل لكن هذه زكاة ما بالحوجة بالح حقيقات مركب ولا الكيو ويجري تعرين تاس وده الصوماليين أما منيابلس أما كولومبوس بس كليه كفلان haddii masaajidada 8 Soomaaliyeed ay gabadha guri in loo godo ilaa 300 kun ah ilaa 500 kun ah half million ah wallahi alladhi la ilaha ghayru hal jimca kaliya sameyn karaan one friday ay sameyn karaan
وانا عصانيا هدرتها dhammaan masaajidyada North America meel walba iga maqlaya golaha imaamiyada masaajidada la baxay waxaan idinka codsanayaa Xamdi Maxamed Xaaji Saciid waa gabadheeni aan u helino aan cadda xaqiijino يعني dhalinyaradii aan hadda aan gudiga magacaabayni kaligood kuma fidna magaalada Columbus ay kulligeen inaan isu nimaana loo baahan yahay caalamka oo dhan Soomaalida joogta marka Cabdiraxmaan waxaad Cabdiraxmaan marka waxaad leedahay masaajidadu waa awoodaan mas'uuliyad haysa saaraan ilaahay ugu xishoodaan gabadhaas hal asturo walaalow gacaliyow waan qiiroonay waan ilmeynay waan oynay xamdo waan la oynay laakiin xamdo meel ho u baahan hada lagama keeno Soomaali weyn maan ka codsanaynaa walaalayaal fadlan waxaan in sugaynaa oo aan sugayno ilaahay baan ka baryanaa marka labaadna ilaahay Soomaali wadad jecel wadad qiiro badan inta qof ilmeynaysa Cabdixaafidow ooyo ilmeynaysa ooyaysa dhalinyaro culumadana waa jecel wadaadada ma wadaadadu dhaliyay waxay sayeen wadaadadu waa fiican yihiin wadaadada Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed waa fiican yihiin siyaasiga Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid waa fiican yihiin xoogaa xiniyihii baa ka batay marka xiniyihii baa inta ka batay isdardaraya marka waxa loo baahan yahay war meel fiican aan la aadno xiniyahan iyo qooraha kan innagii baa isu xiniyo weyn oo iska adag gaaladiina waa u dabacsannahay ilaahayna wuxuu yidhi ashiddaa'u cala alkufaari ruhamaa'u baynahum marka walaalayaal siyaasiga wax bedel waa dayacannay waa gartay Cabdiraxmaan waxaan rabaa dhowr su'aalood oo mawduuca ka baxsan aan ku weydiiyo laakiin waxaa laga yaabaa arrintan hadda aad sheegaysid oo nimankan xiniyaha waaweyn waxaa laga yaabaa inay ku yidhahdaan adaa sanaysay tuuna siiyo mas-uulka marka taasina waa meesheedii halkaasaan ku dayno Cabdiraxmaan waxaa jira dad fara badan oo aaminsan aaladan social mediaha lagu yaacay ee la yidhaahda TikTok inaad leedahay oo waxaa la soo geliyaa muuqaallo gaagaaban oo adigu aad leedahay oo markaa dadka lagu dhex darayo oo macno aad u foolxun ka turjumaya horta bal dadka oga dhac adigu yes iyo no ma leedahay TikTok mise ma leedahay Cabdiraxmaan walaalow TikTok waxaan leeyahay mid qur'aan mooye wax kale aysan ku jirin haaji dabcasar number 6 haaji dabcasar iyo number 6 waxaan kaloo ciida ka badan oo haaji dabcasara cajaladaha waxay ka soo xadaan Facebookayga aniga Facebookii waan isku dayay inaan private ka dhigo waan sii dayaa cajalada waa wax dan ummadda ugu jirto sida arrintan xamdo kale ilaa 300 oo kun baa daawatay oo qof baa daawatay dadkii kama xiri karo way qaadanayaan way jarjarayaan waxay ka dhigayaan wax hadii la gudmaayo qaarkood way jarjarayaan waxa laga yaabaa adiga Cabdixaafid oo kale inay erayaan qof kale ka inta jarjaraan ay kugu xiraan ama gabar kale ku xiraan ama ay qabiil ku xiraan marka anigu TikTok-gaas faraha badan oo ciida ka batay kalibyada la soo geliyo walaalayaal anigu mali kayga qur'aan kaliya ku jira markii ugu dambeysay waxaan ka soo bilaabay suuratu naas suuratu zalzala ama idha zulzilat al-ardu baan ku joojiyay halkaasana igu dambeysay marka waa khalad Facebookyo badan baa lagu furtay badankoodii waan xirnay YouTube fara badan ayaa lagu furtay waan xirnay cajaladihii waa la xadaa maalin walba walaalow marka waa ka cudur daaranaya dadka Soomaaliyeedna iska jireen insha Allah waxaan rajaynayaa inaan u gudbi doono technology sida kaaga oo kale ah oo wax walba ay ku cad yihiin qofka iskale oo aan la koobiyeyn karin biidni Ilaahi tacaala adigo iyo rag kala midka oo Soomaaliyeedna inay training degdeg ay furi doonaan baan insha Allah aan rajaynayaa oo macallimiin waa gartay gabagabadii intaad TikTok intaad social media ku jirtay wixii kugu yaabka badnaa aragtay maxay ahayd walaalow wixii igu yaabka badnaa waxay ahayd daan aan ilaahay ka cabsado waxa igu yaabka badnaa waxa weeyaan waa indha adayga ragga caawa xalana jooga oo adduunkii oo dhanba uu ka yaaban yahay war waxaa la yiri dimuqraadiyad iyo one vote iyo one man hal aad diidnay war waxaa la yiri doorasho dadban hal aad diidnay dusamarab 1 diidnay dusamarab 2 diidnay dusamarab 3 diidnay dusamarab 4 diidnay garawa 5 diidnay baydhaba diidnay tii banaadir diidnay haddana afisyoona diidnay maxaad rabtaan waxaan rabnaa wax kale maaha kursiga iiga deg walaalow kursiga kan anaa soo gatay ama anaa ilaahay isiiyey ama anaa shacabkii ammaane iigu dhiibteen iiga deg ka degi mahayd degi mahayd
kursiga kan iga durug la garay walaalow aan wadaagno isla yeelno la garay see u wadaagnaa waxsan wadaagi karnaa waxa weeye alla ka cabsi isu tanaasul kala roonaansho run wadaniyad maxaa isku soo aadiyey dacwaddii badda soomaaliya oo cabdixaafidow noo taalla heeg oo kenyaati iyo carab imaaraat iyo aala sacuud iyo aala israa'iil iyo shirkadaha caalamiga ee batroolka oo seven sisters shell iyo ay dalkanagii gubayaan nimanka thawraadka iyo abraysinka kiciya ay gubayaan dalkanagii maalintaa iyo maalintaa maxaa isku soo aadiyey oo nimanka kan madaafiic la soo riday dalkanagii uga dhigay annagii maaragtay isbaarana u dhiganayaan waxa weeyaan waa badda iyo biriga in laga maaragtay la xaraashaa la rabaa ummadana jaawara lagu yidhi cabdiraxmaan waxaan jeclahay arrintaas muhiimad bay leedahay arrinta badda waa arrin qadiyad qaran weeye dabcan qof kastoo soomaaliya ka dhidhinaya laakiin waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego sidaa adigu u dhigay sidoo aad ku eedeynaysa nimankaas siyaasiyiinta ah waa ra'yigaaga adiga kuu gaarka xaq baana u leedahay ugu dambayntii maxaad kula dardaarmi lahayd bulshada soomaaliyeed dunida daafeeda kaa daawanaysa aad jeceshahay inaad ku tidhaahdid inkastoo hadda waayahan dambe aad iska daysay saad ku ahaan jirtay facebooka saad somaliland u tagtayba waxa weeye deganaansho badan iyo tanaasul fara badan baa kaa muuqda maxaad kula dardaarmaysaa dadka soomaaliyeed guud ahaan inay gabadhaas u sameeyaan ugu dambayn waaxid kalima wallahi walaalow ereyga somaliland macnaheedu waa ardu soomaal dhulkii soomaaliya aad baan u jeclaa somaliland waana dhulkii awooyaalkay waana jeclahay waana dhulkii daraawiishta maasha allah dadka hadda joogana waa dadkii dhiga iyo dhacaankii waxaan idin leeyahay walaalayaal irxamuu man fi lardi irxamukum man fi samaa hooyooyinkeen eedooyinkeen gabdhaheenna dumarkeenna walaalayaalow hala dhaqo walaalayaalow tii xaasa iyo tii gabara iyo tii hooyo walaalayaalow gabdhaha dumarka u naxariisano waa iga mid walaalayaalow aan dalkeenni dhisanno walaalayaalow aan isu turno walaalayaalow aan isu tanaasulno walaalayaalow gabdhaha walaalayaalow kuwa xabsiyada ku jira aan u gurmanno walaalayaalow kuwa gaajaysan oo gede iyo meel walba iyo jibooyinka iyo gobollada dhexe iyo waqooyi iyo koonfur iyo jigjiga iyo harar iyo NFD walaalayaalow oonka iyo rafaadka iyo silac iyo saxariirta iyo covid-19 walaalayaalow aan u gargaarno walaalayaalow dhalinyarada halkaan rehabilitation centerska u baano aan u gargaarno walaalayaalow dadka aan quraacan aan qadayn dil iyo dibadba aan ka warqabno walaalayaalow xabsiyadu waa buuxaan walaalayaalow la dayacan walaalayaalow Soomaali Christians mad arkaysaa oo Facebookya iyo furtay war ilaahay inta ka baqno fattaqullaha wa aslihu daata baynikum ilaahay ka baqo heshiiya alla yiri wasulhu khayr ilaahayna wuxuu yiri heshiiska cidii diida la dagaalama xamda ha loo gurmado buraan burley ha loo gurmado hooyada Kenya ha loo gurmado Soomaali weyn ha isu gurmato saad uga diidiseen ula danqateen hooyo xamdo gabadheena xamdo iyo gabdhaha Soomaaliyeed ba uga naxdeen ragga Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed kulligiin haliyayaatiin ajar iyo xasanaad walaalkii Cabdilxaafid kamid yahay iyo wariyaalka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed kulligiin khayr Allah siiyo taageera madaxdiina taageera dalkiina taageera diintiina taageera ciidankiina xooga dalka Soomaaliyeed fadlan wiilasheena xooga dalka ayaga haliyaya fadlan taageera adiguna aad baad u maasantay walaalkayo hagaag Cabdiraxmaan xaaji intaas ayaan jeclahay kusoo gabagabeeyey aad baan kugu mahad celinayaa xilli dambey kuu tahay inaad maaragtay arrintan u istaagtay muqadaska inanta iyo hooyadeed ilaahay sabab uu kaaga dhigay bulshada Soomaaliyeedna ay ka falcelisay dabad iyo gudo mid ducaye iyo mid dhaqaale bixiye iyo mid khayr Allah ciishooda ilaahay waxa weeye ummad aan kala maarmi karin weeye ilaahay ku xifdiya adiga laftigaaga waa hal qoys weeye hal qoys say isugu ilmeynayso say u ilmeynayaan ilaahay yow Soomaali xifdi guulaysta walaalayaal kulligiin guulaysta barakallahu fiik wa hagaag aayadaas aad akhriday baan ku soo gabagabeynaa suurta anfaal ku jirta fattaqullaha wa aslihu dhaata baynakum allah ku karaameeyo daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa waraysigaan ula yeelanay xaaji dabacsar ilaahay ha karaameeyo idinkaa daawanayay hooyadaas waan idinla soo socodsiinaa miskiinka alle hooyada kale uu ka hadlayey cabdiraxmaan aanu inankeedo maraykanka ku dhibaataysan aanu hadda ka horbaahinay wax allaala waxaan qaban karnay oo dhan waa dirnay jawaab baan sugaynaa dowladaha iyo dad maxaa lahaa degdeg uma jawaabaan laakiin insha allahu tacala waxaan kalsoonahay safaaradda Soomaaliya shakhsiyaad ka shaqeeya asxaabnahay aan la xiriirnay iyo jaaliyadda Soomaalida Minneapolis deganba inay maaragtay arrintaas wax ka qabtaan waa farxad leh jazakallahu khayr waa waajib weeye insha allah
marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدو ياد بدو ما سنتا يادون ولالك غالية ومدى الصومالية عدك سوق الكارث ما تسني فري ومدى الصومالية والله فري 1998 marka saasay ku dhacay walaalle inaan kula kulmo sikadiisa aan ku arkay ama sida yani dayac inuu jiray inay xanuunsanayd gabadha waxba ma qabto waxa jirana waxa keenay Soomaali ayaa ka dambaysa oo yani 30 sano la qaxayo 30 sano la cararayo 30 sano la silcayo hoog iyo halaag قبل أن يقول بأي وحجر أو كمذا يعني دبعتها يعني كل عضي برشة الصومالية دل يدبت بقى هدي كاميرا لا رد بقاله دمر كالصومالية دلان كالصومالية دوائل كالصومالية الشعب وينها الصومالية هلاك أي هايستان ودل يدبت بقوا هايستان نحدين مرقد له هدي أن كاميرا لا رد بقاله أنت ما نعنين فرحنا ما نعرقنين لكن تاني هو قيب ير أو كم إذا ولا الكيا واحد ير أو حبا هين واقرتي عبدالرحمن واقرتي وحتى بتي أرنت كسابسن هو يدا عافمات كذا طبعا أنا أقول أختار ما هي هو يدا قرر مايو إن قون أن كله مساسة تهي يسار ما حنا مجرتوا ويوقف أنت كأركتي مركز لا شيء كيستي وحيقول مقالة قف مسكحة الجوكتو تمام إني أعيد أضو سدا وآخر ذي مركز قف كل شيء كيستي ولا لو حقيقة أدان خنت الشيغو الصومالي يعني وحفيو ويري 99% أدان له الصومالي عافماتك وحيو قبان در لحرتو وحيو قبان عافماتك قاري لوضو وحيو قبان عافماتك هوينا يرينش اسماريسا إن لهيسو إن الظاهر يكرك أمه قدوطات عافماتك إن ليهي حوي الرضا مسكحة وحيالة مضباك هنا قفك أديلا يكود ما هي ولا الكيو أركي أبيه يلقوه دليو أما هو يدي يلقوه دليو أما ولا الكي يلقوه دليو أما قبل يسجل لك فصرها يو أما زوج كذي يولد دليو يعني قرع عن كاس كنا الصدر السنة قرح دعية لبكون أوقف لمن يسوع اللوك دولة يسا مدح دولة على يمن عرب برنامج ياله أمد أيضا رب يعني نبض إلهي سبحانه وتعالى أسديدين يا إسلام يوناك أسيا أيق أسديدي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أن نك الصوماليات أو أركي حل إنه دتك سلايو إنه دتك سقحيو إنه نبض ديدو إنه دولة نبض ديدو مركا رالله وأوصل نقولنا واحد صومالي ولا أمور أمولنا عذر أملو لي هذا أيها كل عه قال المريض فاتقنا ودان قبر شقيسان سبي أهيد وقبر عقل بدن وقبر فريد وقبر عطكن وقبر مارتي أرداله أي كو عيارين هذه لا يكون ما وقبر حنانة ويدي وارد يولال يأهل يسكية يوداد مساجد شوغة شاليد أمة صوماليات وحنانيسة النحريس يومناك تستو غوري يسوغل الى جوج الى عن يعني باكد بيدرك كسيتي marka gabadha khayr Allah siiye ay bacda ay seetay gabadha Soomaaliyeed ayaa siisay baakad iyo gabadhana gacanta ku haysatay baakadna waxay ku weetay alaabteeda ku sidatay marka walaalow yani marka guriyada xataa ma lahayn miya Cabdiraxmaan Raalow